magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayna waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan Kabtan Ayuub iyo Axmed Foodcade. soo dhaweynta wafdida oo ahayd mid meeqaankeedu sareeyo ayaa waxaa ka qayb qaatay saraakiisha ciidamada difaaca gobolka Cayn, ururada dhalinyarada gobolka, bahda saxaafadda iyo guud ahaan shacabweynaha ku nool deegaankani Buuhoodle. waxaana Kabtan Ayuub iyo Axmed Foodcade ay goob fagaaraha kula hadleen shacabweynihii isugu soo baxay soo dhaweyntooda iyagoona u mahad celiyay. warwaay jaalay meechashi maanta cadayseen Buuhoodle magaalo taariikhiya magaalaha ku faano magaaladii inta harti oo dhan maanta ay jabiyeen kaliya la dagaalantay magaalada hataa aan harti gurmad ka helin magaalada kaliya isku filaatay magaalada SNM oo dhan banaan marisay waa idinku faana I love you so much waa idinkaga mahad celinayaa xilli qoraxdu kulushahay hogol rabo ay tahay qoraxdaas soo istaagteen inaad soo dhaweysaan jacaylkiina tustaan waa idinkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dareenkayga lama soo koobi kara maanta laascaan la yaabanaa Buuhoodle ka damay iskoor baa idin yaalla waa idinkaga mahad celinayaa halgankan taariikhiga ahaa doorkii aad ka qaadateen iyo halgankii hore iyo khaatumada hadda cusub ee dhalatay inaad kuwii aas-aasay idinku tihiin kuway ka dhiman weyda inaad tihiin waa idinkaga mahad celinaya waqtigu waa kulul yahay meeshaani waa xaruntii daraawisheed waa xaruntii halganka waa idinla joogayaa caawa haddii ahaydmo waqti baa idinla qaadan doonaa haddana waxaan idin fasaxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu I love you so much I love you Buuhoodle. soo dhaweyn kadib waxaa wafdidani qaabilay isla markaana casuumay beesha Aadan Axmed oo hormuud uu ka yahay garaadka beesha Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub iyo qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka kuwaasi oo u sameeyay casuumad ballaaran isla markaana dejiyay hoygii ay ugu tala galeen. Cabdicasiis Aadan Jaamac, Buuhoodle.